gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdikariin Maxamed Cilmi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah. Gudoomiyaha ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay qas iyo fawdo uu sheegay in degmada uu ka wado gudoomiyihii hore ee Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole. Waxa uu baaq u diray waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee deegaanka. meeshan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin idaacaduhu aad ay u baafbaafiyeen oo aad iyo aad ay u farageliyeen oo aan ka xishoonaynay in badan. arrintaasi waxay tahay waxaa jiray gudoomiyihii hore oo idaacad walba aan ka xishoonayn ee war walba ka sheegaya oo dadkii shacabka ahaa ay dhageysanayaan, culumadii ay dhageysanayso, odayaashii ay dhageysanayso oo degmada aad iyo aad dhibaato ugu haya. arrintiis inaan ka hadlo ayaan rabaa. in badan ayaan ka wareegsanay, waxaan uga wareegsanaynay deegaanka iyo dad ahaanta ayaa dhowris u baahan. waad ogtihiin wixii meeshan ka dhacay ami baashi ahayto UN-ka xilligii lagu xabadaynayay iyo shala galab oo wiil dhalinyaro isqaamay oo yiri buundo jabtaan dhisaya lowr dhagaxa ku rogay lagu yiri lacag baada isii. waxay ceeb ku tahay ceeb waxay ku tahay deegaankay ceeb ku tahay, dad ahaantay ceeb ku tahay, noloshay ceeb ku tahay. hay-adihii samafalka wixii doonayay sharci inay waafaqaan oo sharci soo aadaan mid walba kuur buu u galay. wuxuu yiri haddaan lacag laysiin waa cubahalkii ahayto jidgooyaan ku jiraa. waxaan u sheegayaa horta ninka la yiraahdo Tootole idaacadaha ka dhacaya tamaya gudoomiye ma aha. idaacadaha uu u waramaya codkiisii haya inuunan gudoomiye ahayn. kow sidoo ku yimid baad ogtihiin, kow laba sidoo ku baxaad ogtihiin. dulqaad ayaan sameynaynay aad u badan. waxay gaartay dilan deegaankiya in lala yimaado dan kaamalihi ah. anigu waa tagay wax alla waxaan rabaan haleynaya. waxa wax ka qabadkaas ciidamadii qaabilsanaa amniga, odayaasha dhaqanka, kuwa mahalkii culumada, arrintaa waa inay wax ka qabtaan. dhanka kale waxa uu ka hadlay hay'ado uu sheegay inay laaluushinayaan gudoomiyihii hore, waxauna hay'adahaasi uga digay arrimahaasi ay gacanta kula jiraan. hay-aduhu ma ahan iyo injooyada qayb ka mid yihiin ma ahan siyaasiyiin, koox siyaasiyiin hadday yihiin Tootole ha la shireen hadba luuq ha la fariisteen sida qolo WFD oo kaleeto ah oo joogta bahasha la yiraahdo gaalkacay fadhigoodu yahay oo maalin dhaweed u yimid oo ku ballameen inay corruption siiyaan suu bahalkii ay meesha u soo galaan corruption inay siiyaan ay ku ballameen. waxaan leeyahay arrimahaas yeyse ku kadsoomin ayaan leeyahay. ha ka joogeen. haddii ay ku kadsoomaan waxaa iman doona shaqadoodii dhibaato u keenayaan. sharci bay leeyihiin, maamul baa waddanka ka jira, ay aqoonsan yihiin ay hoos yimaadaan. ha ku yimaadeen waddada saxda ah. xafiiska degmada oo furan waa midkan hadda aan joogno oo shaqadu ay ka socoto oo aan shaqada ugu hayno degmada iyo adeeg. tii kuwii la xiriira oo kuurba kula xiriiro corruptionka la doonayo kula xiriira shaqadooday wax u dhibayaan. waxay wax u dhibayaan jiritaankooda dambe wax u dhibayaan. shakhsi aan dadna u naxayn dadna u danaynaynin buundo jabtay wiil asagu gartay in uu inta lowr ku shubo uu dhiso oo meesha gaariyaashu ka wareegsadeen dhiso. ma ahan qof nin adduunyada nolol ka raba in uu ku yiraahdo baadisi haddii kale ma dhisaysid dhagaxaan. wax la fiirsada ma aha, wax la fiirsan kara ma aha. waxaan kaloo sheegaynaa oon caddaynaynaa maalinkii UN-ka la xabadeeyey iyo maanta wixii ka dhacay halkan inuu asagu kolbadi tuu ka yahay. waad ogtihiin adduunkan u sheegaynaa awal xishood iyo qarin iyo magaciisi iyo deegaankana asagu iskama lahan ma ahan shakhsi buu ka yahay. ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa sheegay in uu ishor istaag ku sameeyay gudoomiyihii hore ee Cadaado sumadda gawaarida ee taargada Galmudug, taasna aysan u dulqaadan doonin maamulka Cadaado. waxaa la rabaa dadka deegaanka iyo shacabkuna inay arkaan wuxuu ishortaagay sumaddii Galmudug ayuu ka hadlayo idaacadaha ka maqlayseen. wuxuu ishortaagi kara maaha, waa ayaan daro. hadda la shaqeynaya shaqadii socotaa maanta 10 baa lagu xiray, salad 8 baa lagu xiray. way shaqadii way socotaa. waa ayaan daro inuu ka hadlo deegaanka sumadiisii
cabdikariin oo joogaa la ansixiyey ka socotay cadaado laga qaadanayay dhaqaalaha lagu bixinay waa sumadii wadanka astaantii aan uga duulnay waa qarannimo waa wax federaal ka yimid inuu isku hortaago calaa shakhsi cunno ah waa wax ayaan darro ah marka hay-aduhu yaysa kadsoomin baan leeyahay dadkii way oomeen hodbaalkii way baahdeen kaaban baa jiray biyo la-aan baa jirta abaar baa jidha waxaa loo baahan yahay si daaragtiya dadka inay u soo gaarsiiyaan waxa ay wadaan oo deeqbixiyaashu ay bixinayaan tii wadda qaldan ku timaada meeshay ka soo qaadoon garanaynana waanu gudbinaynaa ayadana waa dacweynaynaa shaqadeeda inay ku weynaysaa mid walibana maamulka jira ayay taageersan tahay ee shakhsi ma taageersana systemka ha ilaaliyeen ha hagaajiyeen odayaasha dhaqanka mar labaad baan u digaynaa waxaan u sheegaynaa oo bahalkii aan ku boorinaynaa culimadiina inay arkaan arrinta ka taagan cadaado degmada cadaado axmed cumar galmudug TV